walaalayaal waxaan Nairobi dhexdiisa ka dhaceen waan ii baryeena walaalahay Soomaaliyeed walaalkeena la raadiya jiif isku diyaarisay oo aad seexatay amaba xaaladdu aysan kaa qasnayn marka gabadha sidaan ay u oynayso dhibaatana qoyskan ay ku jiraan wiilkan dhalinyarada ee iyagu ay dhaleen oo taksiila ahaa ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya 2 maalmood nolol iyo geeri lagu waayay markii ugu dambeysay ee kaamirada CCTV-da qabatayna waa ka koox dumara ayaa balansatay taksigiisa waceen howl buu u qabtay jaranjaran laga degay way si dhaqaaqeen waa muuqaalka ugu dambeeyay ee laga helo marka gabadhu sidaan u ooynayso u calool xumaanayso dhibaatana ay ku jirto waxa ka sii daran aabaha iyo hooyada dhalay Cabdi Ibrahim Cabdi hooyada ayaaba wax yar wanaagsan marka si loo eego laakiin aabaha sokor iyo dhiikar xanuun kasta uu qabay ayaa ku kacay marwo fertility center xarunta ugu fiican daaweynta cudurrada keena dhalmala'aanta rag iyo dumarka lagu dooro daaweyn qaliin iyo bacriminta IVF waxaan kula jirnaa ilaa aan dhabta kuu saarno ubad ilaahay idankii koomo ku jira wiilkoodii dhalinyarada ee u shaqeynayay nolosha maalmeedkan uu soo dhicinayay ayaa nolol iyo geeri lagu waayay dabcan haddii aad joogto Nairobi waxaa laga yaabaa inaad wiilkan dhalinyarada horey u aragtayba amaba aad garanaysid waa gudaha magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayuu ku noolaa oo uu ka shaqeysanayo qoyskan ay ku nool yihiin adiga marka haddaad joogto Nairobi iyo haddii aad ka maqan tahayba oo aad muuqaalkan ku soo gaaray si nabada waxaan ka codsanaynaa inaad nala raadisid wiilkan markii kugu dambeysay haddaad aragtay haddaad arkinne muuqaalka nagala qayb qaado aabaha Soomaaliyeed ee wiilkiisa dhibaatada ku dhacday la xanuunsan ee marxaladda halista ku jiro adigu qayb ka qaada in aabaha safe gareysido wiilkiisa ala raadisay si lamidana hooyada qudheeda way xanuunsatay markii wiilkooda la waayay ayay arintan u dhacaysaa gabadhuna waa taasa way awoodi laadahay inay hadasho waa miskiin iyadu qudheedo way ilmeynaysaa way oynaysaa xaalad halis ku jirta waxayna la dhibaatoonaysaa walaalkeeda oo maqan iyo waalidkeeda oo marxalad adag ku jiro waana curuda qoyska Faadimo waxaan doonaynaa inaan dhammaanteen qoyskan caawino oo aan la raadino wiilka dhalinyarada ee wiilkooda ah ee isaga qudhiisa nolosha curdunka u ahayd ee da'da yar aad u jeedaan muuqaalka CCTV-da si fiican u fiirso jaranjaraday taagan yihiin qaarna waxay dhahayaan jaranjarada aan raacno kuwana waxay dhahayaan aan raacno wishka dabadeed kaamirada markaas kale waxay qaban doontaa dhankaas baabuurta taksigiisana halkana laga qaadan doonaa maalintan ayaa ugu dambaysa wiilka in la arko dib dambe loo arko koox dumara ayaa la dhihi karaa marka shirqoolkiisa inay ka dambeeyaanba dumarkana caadiyan waxa la isku shirqoolo waa waxa ugu badan haddii ay shaqo ahaan lahayd haddii xitaa ay shukaansi ahaan lahayd wiilka dhalinyarada ah hadda waxa lagu shirqoolay waa shaqo taksiilo waaye dabcan way soo wacdeen iyagoo markaas shaqo doon ah dabadeedna dhibaatadan ayuu wiilka la kulmay waa la ayaa hadda booliska wadanka waa la wadaagay jaaliyadaha Soomaalida meesha joogo dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee masaajidada intaba waa la wadaagay laakiin waa la yahay telefonkiisina waa la damiyay isaga iyo xaalad kasta oo hadda uu ku jiro rabbi una og iyo markaas kooxdii wadatayba haddii aad joogtid magaalada Nairobi ee dalka Kenya halistan way soo badatay in la waayo dhalinyaro in nolol iyo geeri lagu waayo in la afduubto in meedadka wadada la soo dhigo way soo badanaysaa Soomaalida Kenya joogto siiba dumarka lagu shirqoolay dumarka Soomaalida shirqoolka qayb ka ah ee wiilasha dhalinyarada qayb ka qaata shirqoolkooda iyaguna way ku soo badanayaan haddaad joogto Nairobi isku badnaaw is ilaali wiilkan dhalinyaradana qoyskiisa aan la raadina dhammaanteen waa wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed dhiban inuu nool yahay inuu geeriyooday intaba cid og ma lahan waalidkan way dhiban yihiin ka qayb qaata muuqaalka dhakhtarka ragga Xamar Hospital wuxuu ka daaweynayaa cudurrada ku dhaca xaniyaha iyo xubnaha taranka ee ragga sida xaniya bararka dhalmo la'aanta ragga xaniyaha oo biyo gala xididada xaniyaha ragga oo barara shahwada ragga oo yaraata hamiyarida iyo xubinta taranka ragga oo jilacda cilad ku timaada qanjirka ragga ee prostate-ka haddaba wixii faahfaahinah lambarada shaashada idin kaga muuqda